Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta mashruuca dhismaha dekedda Hobyo la qaatay Wasiirka Gaadiidka, Dekedaha iyo Isgaarsiinta Qatar Sayid Jaazim bin Saif. Heshiisyadii Qatar iyo Soomaaliya ay kala saxiixdeen ayay ka mid ahayd dhismaha dekedda Hobyo oo muhiim u ah dalkeena iyo shacabka Soomaaliyeed, taasi oo ay dhismaheeda dowladda Soomaaliya siinayso ahmiyad weyn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Dekedaha Qatar ayaa isla qaatay ahmiyadda ay dowladda Soomaaliya ku fadhiso dhismaha dekedda Hobyo, isagoo Wasiirka Dekedaha Qatar ballan qaaday in dowladda Qatar ay bilaabayso dhismaha dekedda Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii shirka ku heliyay Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa xusay in dhowaan la bilaabi doono howlaha lagu dhisayo dekedda Hobyo. Shirka hadda soo dhamaaday waxa looga hadlay Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu kulan gaar ah la yeeshay Wasiirka Gaadiidka, Isgaarsiinta iyo Dekedaha ee waddanka Qatar. Xaaladahan waxaa ka mid ah horumarinta mashruuc hore loo ballan qaaday iyo bilaabidda dardargelinta mashruucii lagu dhisay dekedda Hobyo looga dhisay. Mashruucaas waa mashruuc ay ballan qaadeen, ay tageen, soo arkeen, soo fiiriyeen, maadaama maalin hore ay dhowr bilood ka hor tageen. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ku adkeeyay kana codsaday in mashruucii la bilaabo si ugu dhaqsaha badan. Mashruuca hadda ayaa bilowgiisa mashruucaas bilaabanaya oo feasibility study iyo shaqooyinka la rabay iyo wixii oo dhan la hawlgalay. Marka mashruucaas waxaa mid si gaar ah Ra'iisul Wasaaruhu ugu adkeeyay wasiirka uu la kulmay, wasiirkuna ballan qaad shakhsiyan oo ka sameeyay arrintaas oo ballan qaaday in maanta dabagal hadda laga bilaabo mashruucaas si loo hirgelinayo, loo fulinayo, looga maradhalinayo, laga wada shaqeynayo. Marka runtii waxay ahayd shir gaar ah oo ka baxsan shirarkii aan lahayn Ra'iisul Wasaaraha waddankan iyo wasiirada kale lahayn. Waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay mashruucaas leeyahay sida dowladda Soomaaliya ballanqaadka dhexdhigii madaxweynaha iyo booqashooyinkii kala duwanaa lagu tagay iyo ballanqaadyada la sameeyay Ra'iisul Wasaaruhu in laga maradhaliyo inuu rabo inuu ku adkeeyo wasiirka in arrintaas ay tahay arrin serious ah oo dowladda Soomaaliya serious u qaadanayso. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal iyo waqti dheer ku bixinaysa sidii dalkeena loogu heli lahaa maalgashi ka oo horseed u noqonaysa horumar dhaqaale oo ku tilaabsada dalkeena. Dekedda Hobyana mashruuca lagu dhisayana waa qayb ka mid ah qorshahaasi. Nasr Bashiir Cali, Warbaahinta Qaranka, Dooxa.